الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة في الله، وحين كسر احترني موضوعي سيدال وقادة وحي إلهي كسيي إنه نقضى وحبرا كيسا عين الصوت تقعيدني والصوت الماني waxyaalaha ilaahay aadamaha siiyay inay u qaybsamaan wax barakaysan iyo wax baraka la'aan waxaan ku soo miisaalinay tusaale uga soo dhignay xoolaha. waxaan mar labaad tusaale uga soo dhignay cimriga bini aadamka. haddana waxaynu ka hadlaynaa caruurta ilaahay ina siiyay tabaaraka wa tacaala oo nicmo ah ayaa waxay u qaybsamaan qaar wanaagsan oo barakaysan oo nafci leh iyo qaar khariban oo aan baraka lahayn oo xun. sidee bay ku dhici kartaa inuu waalidka ilmaha dhalay uu ilmihiisa uga dhigi karaa ilmo barakaysan biidni illaah oo ilaahay xaqiisa guta, xaqa addoommada guta, isaga baari u noqda, hadduu dhinto u soo duceeyo uu ka hormaro qabriga ku anfaca, qiyaamada u shafeeca, adduunyada intay isla nooyihiinna ixsaan iyo wanaag u sameeya, khalqiga ilaahay agtiisana agtoodana ku ammaanaado nafci iyo wanaag yeesha. ilmo noocaasoo kale ah sidee bay kuugu suuroobi kartaa? dowr iyo kaalinsi adigu ma ku leedahay biidni illaah? jawaabtu waa nacam. allah tabaaraka wa tacaala wax walba asbaab buu u sameeyey. asbaabtii haddaad qaadato ilaahayna la kaashato waad gaadhi. asbaabtaa waxaa ka mida kow, marka koowaad ilmahaaga cidda aad nolosha la wadaagayso ruux wanaagsan u dooro. haddaad nin tahayna hooyada carruurtaada tarbiyayn doonta ee gacanta ku qaban doonta waa madrasada ugu horraysa ilmuhu ka qalin jabiyaane hooyo wanaagsan ka dhig. wax wanaagsan ilmahaaga u door. haddaad hooyo tahay ama dumar tahayna ninka nolosha kula wadaagaya ilmahaaga aabba u noqon doona ee tarbiyayn doona ha noqdo nin wanaagsan ha noqdo. micyaarka iyo miisaanka doorashaduna waa inay noqdo diin iyo akhlaaq. wixii kale waa hadduu la socdaayo waxaaga wax lagugu daray waa siyaado waay. nabigeenu isagoo macnaha tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu leeyahay dumarka waxaa loo guursadaa afar mid ka mida loo guursadaa. caadatan loogu xishaa marka la guursanayo inay xoolo leedahay waa loogu xishaa, inay sharaf leedaho reer sharaf leh ka soo jeedana waa loogu xishaa, in ay qurux leedahiyo dhabana waa loogu xishaa, inay diin leedahayna waa loogu xishaa oo waa loo guursadaa. nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam midda diinta le ku guulayso ooyayna taasi kaa fakanin buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. xoolaha iyo quruxda iyo sharafka kulli waxaasoo dhan waxaa ka muhiimsan inay diin iyo akhlaaq leedahay. dumarka ragga loo guurinaya markuu nabigu ka hadlayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh iyadana wuxuu yidhi wuxuu la hadlayaa raggii gabdhaha guurinaya dumarka guurinaya. rasuulku wuxuu yidhi sal alla alay wasalam adeer fadhiiso, adeer meeshaada fadhiiso, halkaa fadhiiso. wuxuu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu idin yimaado nin aad diintiisa iyo akhlaaqdiisa ku kalsoon tihiin u guuriya. bimacnaa ninka aad gabadhiinna siinaysaan ha noqdo nin akhlaaq leh oo diin leh. halkaa ka fiiriya. sidaas daraaddeed waxa ugu muhiimsanayd ilmahaaga u tari karta wax weeyaan iyo tillaabada ugu horraysa in aad ilmaha u doorto ruux wanaagsan oo diin iyo akhlaaq leh. qodobka labaadii waxa weeye ilmuhu markuu uur galayo ood hooyadii kulmaysaan u xirsixid, u ducee, ilaahay magangeliyadiisa geli. waxaa nabigeenna ka sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu yidhi haddii midkiin markuu xaaskiisa u tegayo u galmoonayo uu yidhaahdo bismi illaah magac allaan hawshan ku qabanayaa,
اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الله الشيطان نغفوغي waxaad nagu irsaaqdiya caruurtaad nasiisana shaytaan ka fogee sida hadduu ku duceeyo markuu xaaska u galmoonayo halka haddii ilmo laga siiyo weligii shaydaan dhibi maayo buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh baraka la'aan iyo shar iyo fasaadna shaydaan buu ka yimaadaa haddiiba shaydaankii laga xifdiyo walad wuxuu noqonayaa noloshiisa barakaysan oo wanaagsan oo maxfuud u noqonaya بمجرد مركا هو يدي أتكل ميسان دعاء أدو دعيسو إلهي كأقبله لكن وحيوبها انتهي إن لها لينه تلابد الصدحات وحواه ilmihii markuu dhasho oo guriga yimaado meesha ugu horeysa uu wax ka qaaday isbedelka ka qaadanayo waa labada waalid khaasatan hooyada oo uu ilmuhu u badan yahay wuxuu nabigeenu tilmaamayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ilmuhu markuu dhasho toosnaan buu ku dhashaa fitru ku dhashaa laakiin fitradiisa iyo toosnaantu ku dhashay waxa bedela labada dhashay baa bedelaysa haday yahuudiyiin markaasay yahuudi ka dhigayaan oo bedelayaan haday nasaara yihiin iyo kirishtan markaasay kirishtaamaynayaan oo bedelayaan oo saddex ilaah iyo balaayo ku akhrinayaan haday majuus yihiin dabcaabuda markaasay majuus ka dhigayaan oo bedelayaan haday muslim yihiin da islaamnimadiisa iyo wuxuu ku dhashay hagaagii bay u sii xoojinayaan saas xadiidka laga fahmay wuxuu nabigu ku miithaaliyay salawaatu rabbi wasalaamu calayh sida neefka ariga ah ee dhashay uurka hooyadii wuxuu ka soo baxayaa ilmaha dhashay ee xoolaha ah asaga oo dhammaystiran oo sumad lahayn dhag jarnayn oo aan meel la ka dhimanayn buu dhalanaya hadhowna kii lahaaba dhagta ka jarayo oo sumadayo oo calaamaynayo sidiisii ka bedelay ilmuhu waa sidaas oo kale saas daraadeed labada waalid waxa la doonayaa in ay yihiin dad hagaagsan oo ilmaha si hagaajiya oo awsan xumaan ka qaadanin midna ogaada walaalayaal ilmaha yarka ah wuxuu faham bilaabayaa marxalo hore oo uu sariirta ku jiro oodan adigu islaamin wax buu fahmaya mar aad isleedahay waxba ma garanayo ilmaha maskaxdiisu waxbay ururinaysaa waxa hooyadii uu ku arko waxa aabihii uu ku arko waa ururinaya صح ما جوابي كرو ما سوعلين كرو لكن وأرورينيا هادونا مركو قالوا إنه وح براكس كريو وح سميو وح أركيسا وحي آبيه هو يأكو أركيبو تشيليا وحي ولاليه سكوا وين يقولي جوجا كو أركيبو تشيليا هل كاسو كقاضنا يا مرك أخلاق كقاضنا لكن كيسا أنوجا أجوه الريا يبلوكيتك أجوه الريا المها لكن كيسا هل كاسو كلا كل مية sidaas daraadeed guriga hagaaj oo guriga daahiri oo akhlaaqad xun ka hagaaj oo adiga hooyo is hagaajiya oo dad wanaagsan noqda hatta hadaad ibtilaysan tihiin ama midkiin uu ku ibtilaysan yahay dhaqamada xun xun ka qaarkood ilmaha hortooda ha ku sameeynin ilmahaaga hortiisaad qaadka ku cuntaa inay hagaagaan waad rabtaa ilmahaaga hortooda sigaarka ku cabtaa inay hagaagaan waad rabtaa ilmahaaga hortoodaad adiga hooyo isku laysaanood isku caydaan inay hagaagaan waa rabtaa ilmahaaga hortoodaad ku fashilantihiin markaasaad rabtaan ilmihii inay idin hagaagaan say ku soconaysaa waa sidaas daraadeed xataa hadaad ibtilaysan tahay oo dhaqamada qaarkood ku ibtilaysan tahay banaanka la aad ilmaha hortooda ha ku sameeyeen arintaasi waa arin muhiim ah in ilmaha ilmo barakeysan ilaahay kaaga dhigo qodobka afraadi wuxuu yahay ilmihii markay gaadhaan xilli waxbarasho waxa ugu horeeya ee ilmahaaga qalbigiisa galaya iridiisa garaacaya ha noqdo ilaahay hadalkiisa tabaaraka wa taala quraanka kariimka ah meel kale hal aadin ya xanaanada caruurta iyo iskuulka fasalada hoose iyo gacan kale markaad geliso ka bootiso quraankii rabbi ilmahaasi qalbigiisa waxa ugu horeeyay ABCD ay noqoto iyo sawiro loo sawiro maxaa ka filaysaa adiga hadalka rabbi baa barakaysan sida rabbi quraanka ku sheegay kitaabun anzalnahu ilayka mubaarak wa hadal barakaysan way waxa ilmaha qalbigiisa gale ugu horeeyo quraanka ha noqdo quraanka barto tacliin uu ka daahayo ma jiro tacliinka muhiimsanna ma jirto quraanka ha barto
معناها قرآن كهبرت كدبنا انت يوسن كو اكاننا الماء هلا برو واجباتك دينتيسا هلا برو سيديبو ربيكي كو عابديا سيبو كو عابديا maxaa gaalnimo maxaa islaamnimo maxaa sunna maxaa bidca maxaa taaca maxaa macsiya ilmaha waa inuu diintiisa garanayo way xaaladda iyada ah ee ugu horeysiyo marxalada ugu horeyso kula dadaal tacliintiisu inay noqoto inuu barto Allahiisa iyo aakhiradiisa iyo sidoo adduunkiisa u noolaan lahaa marka xigtaay hadii aad iskuul geynayso ama madrasa geynayso iskuulka iyo madrasada aad geynayso ha noqoto mid aamin ah wanaagii uu hore u soo qaatay inay u siyaadiyaan mooyee aan waxba ka dhimaynin hadiise laakiin ilmihii aad soo tarbiyayso marka dambana aad gacan gaala geliso iskuul gaalo gacanta u geliso dad mulxidiin oo diin balahayn baad iskuulkooda gacanta u gelisay caruurta uu iskuulka la dhigto iyo iskuulka iyo bii'adiisa dhan wax diina kama qaadayo waxoogaagii akhlaaqda uu soo bartayna way ka fasaadinayaan ilmahaasi wuxuu noolaanayaa marka ugu horeysaba su'aalo waxa ku bilaabanaya uusan ka jawaabi karin waa yaryahay maskaxdiisa iyo garaadkiisu wali ma bislaanin inuu wax isgarab dhigo kala rajaxo wali ma gaadhin waa wareeraya marka wuxuu leeyahay war wixii aabiyo hooyo ku soo bareen miyaa saxsan mise waxan iskuulka ka jira saxsan waa wareeraya marka waxa laga yaabaa halka inuu ka bilowdo ilmaha inxiraafkiisa iyo khadkii hore intuu ka leexdo inuu jid kala qaato adigana waxay kaaga xidhan tahay waxaan rabaa ilmahaygu inuu buundooyin sare keeno iskuulada ugu magac roon ee darajaadka ugu sareeya wadanka helaan rabaa ilmahaygu inuu halka ka barmooso tayib galisay ka soo bax ilmahaagiyo mulxido ilaahay inkirsan oo aakhira inkirsan oo adiga waalidnimadaadii aan wax badan u haynin ayaa kaaga soo baxay lacag badanna waa ka baabacday ilaahiisina waad garab marisay aakhiradiisina waad fasaadisay adiga saa u galay ilaahay hortiisa u diyaar garow su'aashaasaad uga jawaabi lahayd ilmahaaga meel aamin ah gacan aamin ah meel uu wax ka qado waajib ku saaran waa qodobka xigay wuxuu yahay ilmaha si uu ilmo wanaagsan oo barakaysan u noqdo deegaanka aad degayso iyo cidda uu la darsaysa ha noqoto iyadana dad wanaagsan caruurta uu la soconayo ha noqoto caruur wanaagsan iska dhaaf caruurta yaryarkee maskaxdooduba bannaanta cid walbana wax ku shuban karta iska badaay xataa dadka waaweyn baa quraanka iyo sunnadu inoo sheegeen ruuxu dariskiisa ayuu ku diin yahay mujtamaca aad la nooshahay baa ku saamaynaya xumaantiisu ku siin wanaagiisana waxbuu ka siinaya sidaas daraadeed baa dadka waaweyn shariicadu waxay amartay meel wanaagsan deegaanka raadsada daris wanaagsan raadsada mujtamac wanaagsan raadsada maxaad malaynaysaa marka caruur yar ilmahaagii baad qaaday badweyn baad ku dhex tuurtay dhul gaalaad geysay markaas waxaad leedahay doonaysaa jaamacadii waa ilhaad jaamacad ilmuhu dhiganayo ilaahay baa lagu inkiraa diini ma jirtaa lagu dhigaa falsafo waxaa lagu dhigaa ilaahay iyo aakhiraba inkirsan iskuulkii sidoo kale akhlaaq xumo iyo dhaqan xumo iyo waxaa lagu dhigaa liwaad iyo qashin baa lagu dhigaa mujtamacii waa fasaadsan yahay meeshii uu fiirinayo social media iyo telefishinadii kulli qashin baa ka socda billaahi calaykum ilma yar oo aan maskaxdiisu wali bislaanin oo meesha lagu tuuray maxal ka fili kartaa way marka ha qariibsanin halal la yaabi marka inuu soo baxo asagoo kule ilaah wax la yiraahdo ma jiro asagoo kule aakhira wax la yiraahdo ma jiro asagoo adigii soo koriye laftaada wax xuquuqa aan ku ogeyn inuu soo baxo oo professor noqday hal la yaabin marka ada halka mariyay ada jidka mariyay waxa loo baahanyaa ilmahaaga mujtamaca iyo bii'adu saameyn bay leedahay meel wanaagsan ilmahaaga u raadi ama inaad mawjada ku dhex toortada is ilaali tidhaahday wax soconaya ma qodobka xigay wuxuu yahay loo baahanyaa inaynu qaadanno ilmaha kaliya wax barid ma ahe waalidku waa inuu ka warhayo oo la socdo oo tarbiyeeyo oo waxa diintii khayrka uu u sheegayo isku dayo inuu ilmuhu sameeyo iyagoo yar yar ah waa ka nabigeenu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi arurtina salaada bara salaada amra markay 7 jir gaadhaan 7 jir mukallaf ma
toban jir markay gaadhaanna ilmaha salaada ku garaaca hadday ka tagaan meesha ay seexanayaanna kala geeya oo wiilashiyo gabdhaha isla seexinina lisa waa yaryar maxaa salaada loo amrayaa oo loogu garaacayaa calashaan inay sii tababartaan baa la rabaa maxaa loo leeyahay meesha jiifsanayaan u kala qaadoo kala durkiyo kala fogeeya calashaan waxa laga yaabayaa inay xumaan isku bartaan waa taxadar waxaa la doonayaa marka carruurta inaad adigu la socotood ka warhayso soo kaxe masaajidka keen majaalista cilmiga ha kula fadhiisteen wanaagga bar xumaanta ka celi si camaliya la rabaa carruurta in loo tababaro la practice gareeyo maxaa yeelay macluumaadkii aad maskaxdiisa ku shutay in la camaliyay u baahanta camaliyeynta iyo tatbiiquna waa mas'alo kale waa masalada nabigeenu tilmaamayo salawaatu rabbi wasalaamu calayh gabadh xijaab ku kortay oo yaraanteedii la xijaabay oo la asturay oo xishaad lagu barbaariyay markay weynaatana xishoodkii iyo wanaagii ay ku barbaartay ilaashanaysa wiil yar oo sidoo kale to alla yaqaano diin iyo akhlaaq lagu barbaariyay markuu weynaadana wuxuu noqonayaa ilmo ilaashan buu noqonayaa sida qaalibka ah sidaas daraadeed ilmaha waa inaad tarbiye iyo si camali ah waalidku uu uga warhayo una u amro waxa ugu dambeeya ilmahaaga asbaabta waxa kamida inaad ilaahay u barido sidii markuu uur galayayba aad ugu xirsi xidhay oo ilaahay aad ugu bariday noloshiisana ilaahay u bari ilaahu ii xifdi ilaahu ii barakee ilaahu fitanka ka ilaali ilaahu ii hagaaji Soomaarite maxaa yeelay sida quraanku inoo tilmaamay hatta idha balagha ashuddah wa balagha 40 sana قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إله إلمها إيها جاج إله عروت إيها جاج محايا لي دعاء والدك إلمه سأدعيه وحي كم التهي دعوينك إلهي أقبله دعويك أن السؤال النبي كمت marka caruurta kula dadaala inaad u ducaysaan inta soo dadaal tilaabo markaad qaadato kadib ducadana ha ka halmaamin ilmahaagu sidaas oo ku noqonaya ilmo barakaysan ilmo khayr badan ilmo aan shar yar ama shar lahayn ilmo naafico nafcilaho tayiba sidaas ku noqon karaya hadii kale ta waxa dhalaysa oo ka soo baxaya wax adigii laftaadii aad mustaqbalka tiraahdo ilaahu habeenkii uur galahay maxaan isaga seexan waay maxaa ii geeyay شرير بو نقضي مفسد بو نقضي لفيه سنة آن رونين خلقنا آن رونين أذيقنا آن كور رونين يا قلي عرورتان يرير كإيه جدتك تاكتاقين يدتك توريين يا قلي أبي هو يا مسلمان قلي عرورتان ديك قدادين يسا أمد بابيه إبر كدق يا قلي تد قيس مسلمي كسو جيدان عرور بدن او ملحدين او الهي اخربا انكرسن يا دلي دد مسلمين دلي والدكي با مسؤوليتيسا غبي haduu gabayna natiijadaas soo bax ilmahaaga soo noqdo ilmo wanaagsan oo barakaysan dadaalkeedii la imow ha noqonin intaad ilmo dhashay inaad foofiso xoolahaaba markii la foofiyo la ilaaliya oo laga ilaaliya waraabaha iyo dugaaga laga ilaaliya ilma inta la dhalay faraha laga qaaday kadibna wanaag laga sugay ma aha dhaqan waalid muslim ah waa dadaal joogta khaasatan marxalada maanta aynu joogno iyo xaaladda aynu maraynaa xaalad sahlan ma aha دلال بلو بايسي المهن نقضان علم بركيسا صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الله